buundooyinka aad bay u kala duwan yihiin iyadoo loo eegayo heerka khatarta ay keenayaan. Hubaal halkan waxaa 10 ka mid ah buundooyinka ugu khatarta badan dunida, kuwaas oo soo jeedanaya booqdayaal badan halkaas yimaada. Kaalinta 10aad waxaa ku jira buundada loo yaqaan Triff Bridge Switzerland. Buundada Triff ee ku taala Switzerland waa buundada cajiibka ah ee ku taala buuraha Alps ee Swiss. Waxay ku fidsan tahay harada Triff Sea oo bixisa aragtiyo soo jiidasho leh oo ku saabsan buuraha ku hareeraysan iyo barafka. Buundada ayaa ah goob caan ah oo lagu damaashaado dadka xiiseynaya meelaha soo jiidashada leh, taas oo bixisa marin u helida dariiqyo socod fog iyo muuqaal dabiici oo cajiib ah. Kaalinta 9aad waxaa ku jira Carrick Reed Road Bridge Northern Ireland. Buundada Carrick Reed waxay dhab ahaantii ku taalaa waqooyiga Ireland ee ma ahan Mother Ireland. Waa soo jiidasho dalxiis oo caan ah oo u dhow Ballintoy ee gobolka Antrim ee wadanka Northern Ireland. Buundada ayaa dhererkeedu yahay 20 mitir, waxayna ku xidhan dhulweynaha iyo jasiiradaha yar ee Craig. Waxay caan ku tahay aragtideeda quruxda badan iyo xeebta, waxaana maamula hay'adaha qaranka. Kaalinta 8aad waxaa ku jira Capilano Suspension Bridge Canada. Buundada Suspension Capilano oo ku taala Vancouver ee dalka Canada waa meel loo dalxiis tago oo caan ah oo ku baahsan webiga Capilano ee degmada waqooyiga Vancouver. Buundadani waxa uu dhererkeedu yahay 137 mitir oo kala laadsan 70 mitir oo ka sareysa webiga. Waxay siisaa dadka soo booqda aragtiyo cajiib ah oo ku saabsan keymaha roobka ee ku hareeraysan iyo waadiga Vancouver. Kaalinta 7aad waxaa ku jira Vitim River Bridge Russia. Buundada Vitim River ee Ruushka waa buundada caanka ah ee ku taala Siberia. Waxaa lagu yaqaanaa dhererkeeda xad-dhaafka ah, cidhiidhiga iyo xaqiiqada inay ka maqan tahay nooc kasta oo biraha badbaadada ah. Buundada waxaa isticmaala dadka deegaanka iyo kuwa ku dhiiran ee ku dhiirada, kuwaas oo ku gudba khataradooda. Xaaladaheeda halista iyo dayactir la'aanteeda awgeed waxaa loo arkaa mid ka mid ah buundooyinka ugu khatarta badan adduunka. Kaalinta 6aad waxaa ku jira Marienbrag Germany. Buundada Marien ee Ingiriiska waa buundada caanka ah ee ku taala meel u dhow qalcadda Neuschwanstein ee Bavaria ee dalka Jarmalka. Waxay bixisaa aragtiyo muuqaalo soo jiidasho leh oo ku saabsan qalcadda iyo muuqaalka ku hareeraysan, gaar ahaan Bella George iyo harada Alps. Buundada lafteedu waxay ku fidsan tahay hareeraha Neuschwanstein oo waxay siisaa meel qurux badan booqdayaasha si ay ugu bagaan oo sawir uga qaadaan. Qalcadda Neuschwanstein oo ah qalcadda caanka ah ee uu dhisay boqorkii Laatwaagii labaad ee Bavaria qarnigii 19aad. Kaalinta 5aad waxaa ku jira Royal George Bridge USA. Buundada George Royal waxay ku taalaa Colorado ee dalka USA oo ku fidsan webiga Arkansas oo joogiisu yahay 955 cagood oo u dhiganta 291 mitir oo ka sareysa webiga. Waxay ahayd magaca buundada ugu sareysa adduunka ilaa 2001dii. Waxaa la dhisay 1929kii. Waa soo jiidasho dalxiis oo ku caan ah aragtideeda cajiibka ah ee muuqaalkeeda dabiiciga ah. Soo booqdayaashu waa ay ku lugeyn karaan oo ama ku wadi karaan baabuurta buundada, oo waxay sidoo kale ku raaxaysan karaan soo jiidasho iyo waxqabadyo kala duwan ee beerta George Royal, taasoo ka dhigaysa meel caan ah oo ay tagaan dalxiisayaasha iyo kuwa xiisaha leh. Kaalinta 4aad waxaa ku jira Aiguille du Midi Bridge France. Buundada Aiguille du Midi waxay ku taalaa buuraha Alps ee Faransiiska, gaar ahaan buurta Mont Blanc ee u dhow Jarmonix-ka Faransiiska, waana qayb ka mid ah buurta Aiguille du Midi ee ugu sareysa, kaas oo laga heli karo waxyaabo kala duwan. Buundada lafteedu waxay isku xidhaa laba sare oo joog oo ku dhow 3842 mitir oo u dhiganta 12605 cagood oo ka sareysa heerka badda. Buundadani waxa ay bixisaa muuqaalo cajiib ah oo ku saabsan baaxadda Mont Blanc iyo meelaha ugu sareeya, taas oo ka dhigaysa soo jiidashada caanka iyo dalxiisayaasha. Sidoo kale waa barbilow u tahay hawlaha kala duwan ee buuraleyda iyo barafka gobolkaas. Kaalinta 3aad waxaa ku jira Langkawi Sky Bridge Kedah. Buundada Sky ee Langkawi waa buundo soo jiidanaysa dalxiisayaasha ee ku nool Langkawi Kedah Malaysia ee ku taala dalka Malaysia. Waxay ku fidsan tahay xadka buuraleyda Madsinkangi. Waxay bixisaa aragtiyo cajiib ah oo ku saabsan keymaha roobka iyo jasiiradaha ku xeeran. Buundada ayaa hakad ku jirta iyadoo u jirta 700 mitir oo u dhiganta 2300 cagood oo ka sareysa heerka badda. Waxaana laga heli karaa Langkawi baabuurta korontada ku socota, kaas oo booqdayaasha ilaa meesha ugu sareysa soo jiidanaya. Buundada Sky waxay caan ku tahay naqshadeeda dabiiciga ah iyo qaab dhismeedkeeda iyo muuqaaladeeda ee ay bixiso, taas oo ka dhigaysa goob loo dalxiis tago oo caan ku ah Langkawi. Kaalinta 9aad waxaa ku jira Titles Bridge Switzerland. Waxay u muuqataa inuu jiro jahwareer ku saabsan bridge-ka ciwaanada ee Switzerland, maadaama aysan ahayn buundo si weyn looga aqoonsan yahay magaca gudaha dalkaas. Haddii aad doonayso inaad wax badan ka weydiiso buundo kale ama meel kale, fadlan bixi tafaasiil dheeraad ah. Kaalinta 10aad waxaa ku jira Deception Pass Bridge Washington. Buundada Deception Pass Bridge waa buundo caan ah oo ku taala gobolka Washington ee dalka Mareykanka. Waxay ku fidsan tahay marinka Deception Pass, isku xidhka jasiiradaha Whidbey ilaa jasiiradaha Fidalgo ee gobolka Puget Sound. Dhismaheeda waxaa la dhameeyay 1935. Buundada waa astaan sumad ah oo ku taala waqooyiga galbeed ee Pacific, caan ku ah muuqaalkeeda dabiiciga iyo biyaha iyo keymaha ku hareeraysan. Waa meel caan ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha, sawir qaadayaasha iyo sahmiyayaasha dibadda ah ee booqda beerta gobolka Deception Pass si ay u
u saameeyaan quruxdeeda dabiiciga iyo muhiimadeeda taariikhiga ah.